kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada qaybtii 19aad ee buugga sheekafaneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta 19aad ee buugguna waxa ay ku bilaabmaysaa sida tan. waxay ahayd bishii Oktoobar bilowgeedii markii ay Saafi dishay Cawaale. waxa kale oo sida caadada ah ay cadar duwan masruufka ka qaadan jirtay dukaanka Cali Taakow oo uu Cawaale ku ballamiyay oo ay badanaaba bisha bilowgeeda ka qaadan jirtay. markii ay cadar dukaankii tagtay waxa uu Cali Taakow weydiiyay, miyaadan akhbaarta maqal? markii ay maya ku tirina waxa uu sheegay in Cawaale qiyaastii 7 casho ka hor ay xaaskiisii dishay oo uu dhintay, iyadiina ay xabsiga ku jirto. inkasta oo aanay cadar farxad iyo naxdin midna aanay muujin, haddana waxa indhaheeda ka muuqday yaab iyo amakaag. waxa ay mar kale weydiisay ninkii dukaanka lahaa in uu wax lacag ah u hayo, waxaana uu ugu jawaabay, xaggee lacagtu ka imanaysaa? sawtan ninkii keeni lahaaba la dilay. cadar duwane oo madluubsan oo meesha ay caruurta masruuf uga keeni lahayd ka fekeraysa ayaa gurigeedii ku laabatay. inkasta oo ay ku faraxday in Saafi xabsi ku jirto, waxa aad u sii dhiftay inay weli nooshahay, waxaana ay ku ducaysatay in dil lagu xukumo. waxaana ay ku fekertay, si kastaba ha u dhimatee waa inaanay naagtaasi Cawaale ka dambayn. waxaa ka soo wareegay 7 casho maalintii ay Saafi dishay Cawaale, iyadana xabsiga loo taxaabay. cadar duwane iyo caruurteedii midna kama ay qayb gelin aaskii Cawaale, inkastoo Cawaale nin caan ahaa oo had iyo goor la daba yaaci jiray. aaskiisii waxaa ka soo qayb galay in aan ka badnayn 10 qof oo qaraabadiisa u badnaa oo uu xaaji duwane ku jiro. aaska Cawaale waxaa cadar uga darnaa inay Saafi weli nooshahay, naagta reerkeedii burburisay. waxaana cadar maskaxdeeda buuxiyey fekerkii ahaa sidii ay ka yeeli lahayd Saafi. waxay 100 khidadood oo kala duwan ka fekertaba, waxay ugu dambeyntii go'aansatay inay Saafi xabsiga ku booqato. waxa ay karisay cunto aad u wanaagsan oo ay ku farayaraysatay. markii ay xabsigii soo gaadhay, waxay ilaaladii xabsiga u sheegtay inay Saafi habaryarteed tahay oo ay degdegsan tahay, laakiin ay doonaysay inay qadada ay u keentay u geeyaan. inkasta oo ay Saafi ka shakiday sababta ay habaryarteed u salaami weyday oo ay isaga dhaqaaqday, haddana cuntadii way iska qaadatay. waxa ay cuntadii ula tagtay 2 gabdhood oo la xidhnaa oo iyagana dil loo haystay. waxa ay ahayd cunto aad u macaan oo lagu soo farayaraystay. hase ahaatee markii ay cuntadii gaar ahaan bariiskii ay kala badh cuneen, ayay 3doodiiba dawaqeen, kadibna dhulka ku daateen. mar ay ka soo wareegtay qiyaastii saacad markii cuntada Saafi loo keenay, ayaa waxaa xabsigii yimid Saafi habaryarteed Ruun oo cunto sida. markii ay askartii u sheegtay in ay rabtay inay Saafi aragtana, waxa ay weydiiyeen inay halkan muddo yar ka hor joogtay iyo in kale. Ruun waxa ay u sheegtay in aanay iman, ayna tahay habaryarta keliya ee Saafi magaalada u joogta. habaryarteed Ruun oo aan wax shaki ah gelin ayaa sii raacisay, waxa laga yaabaa inay asxaabteedii kale ahayd. markiiba waxaa baxday gabadh askartii ilaalada ahayd ka mid ah si ay Saafi ugu yeedho si ay habaryarteed u aragto cuntadana uga qaadato. markay gabadhii askariyadda ahayd ay meeshii 3 hablood ku qadaynayeen gaadhayna, waxay aragtay iyaga oo dhulka daadsan. isla markiiba askariyadii oo wejigeeda argagax ka muuqdo ayaa dib u soo carartay si ay askarta kale ugu wargeliso waxa meesha ka dhacay. markiiba waxaa meeshii ku yaacay dhowr askari si ay u hubsadaan waxa meesha ka dhacay. markii ay taataabteen oo marba dhinac u rogeenna waxa ay ula muuqdeen in 3dooduba dhinteen. isla markiiba waxaa cid loo diray gabadh neeras ah oo xabsiga ka shaqaynaysay. 5 daqiiqo kadib markii ay timidna, waxa ay isla halkii ku xaqiijisay inay 3dooduba meyd yihiin. askartii iyo gabadhii neerasta ahaa ayaa ku soo noqday meeshii Saafi habaryarteed joogtay. waxay u sheegeen in ay wax yar sugto, iyaga oo aan wax faahfaahin ah siin. hase ahaatee waxa ay wejiyadoodii ka dareentay argagax iyo war aan lagu farxin. marnaba se Ruun kuma ay fikirin in gabadhay habaryarta u tahay xabsiga lagu dhex dili karo. waxa isku dhex yaacay askartii xabsiga, waxayna bilaabeen in ay raadiyaan nimankii madaxda ahaa. waxaa ka soo wareegay muddo 2 saacadood ku dhow ilaa iyo intii Ruun loo sheegay inay sugto. markasta oo ay askarta weydiiso waxa meesha ka socdana, waxa ay ugu jawaabayeen sug.
iyadii oo meeshii aada ugu jecdatay kuna fikiraysay inay iska tagto ayaa waxa u yeedhay nin askari ah, waxaana uu u sheegay in sarkaalkii xabsiga ugu sarreeyay doonaya inuu la hadlo. Ruun oo la yaaban waxa meesha ka socda ayaa askarigii u yeedhay iska daba gashay. Waxay marba xafiisa sii dhex qaadaanba waxay ugu dambeyntii gaadheen xafiiskii ninka xabsiga xukumayay fadhiyey. Waxa uu ahaa xafiis aada u weyn oo kuraasi badani taallo. Waxa gidaar walba sudhnaa nimankii waddanka madaxda ka ahaa. Ruun waxa ay dukaan yar ku lahayd suuqa bakaaraha, waxayna ahayd markii ugu horreysay ee ay nolosheeda xafiis intaa weynaan la eg aragto. Waxa kale oo kasii yaabiyey kursiga ninka madaxda ahi ku fadhiyey oo ahaa mid aada u weyn oo uu hadba dhinac isugu wareejinayay. Waxa kale oo ay ahayd markii ugu horreysay ee ay aragto kursi wareegaya. Ruun oo salladii cuntadu ku jirtay gacanta midig ku laalaadinaysa oo albaabka taagan ayuu ninkii sarkaalka ahaa ku yidhi, hore u soo soco oo halkan fadhiiso. Inta uu kursi weyn oo miiskiisa xagga hore ka yaala gacanta ugu fiiqay. Ruun oo is ururinaysa xushoodna ka muuqda ayaa kursigii si tartiib ah ugu fadhiisatay. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee ay weligeed kursi noocaas ah ku fadhiisatay. Inta badanna xafiisba intay dani ka gashay weli ma ay tegin. Waxay jalleecday koofiyadiisii ciidanka ee miiska u saarnayd iyo garaadadiisii dhalaalayay ee garbaha ku taxnaa. Kadibna waxa uu weydiiyey magacaa, iyada oo xishood xad dhaaf ay ka muuqda ayay ugu jawaabtay, Ruun. Waan gartay ayuu ku yidhi, wuxuuna u sii raaciyey, Ruun, aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Korneyl Magan, waxaan ahay ninka xabsigan ugu sarreeya. Inkasta oo aanay Ruun garaadada ciidamada si fiican u kala aqoon, haddana waxa uu ugu muuqday inuu yahay nin darajo sare leh. Korneylkii oo hadalka sii wata ayaa Ruun weydiiyey, Ruun, waxaan ku weydiiyey maxaad marxuumadda isu ahaydeen? Ruun oo yaaban ayaa weydiisay, marxuumaddu waayo? Inta uu warqad yar oo hortaallay eegay ayuu yidhi, Saafi baad u timid sow maaha? Kadibna iyada oo yaaban ayay haa ugu jawaabtay. Korneyl Magan oo yaqiinsaday inuu yaro degdegay oo ay ahayd inuu isagu dhiilada dhacday Ruun u sheego ayaa ku yidhi, Ruun, walaal, aad ayaan uga xumahay. Maanta arrin aan weligeed Soomaaliya hore uga dhicinaya xabsigan ka dhacday, oo gabadhii Saafi ee aad habaryarta u ahayd iyo 2 hablood oo kale ayaa cunto sumaysan loo keenay. Ruun ayaa intay ama kaag dartiis afka gacanta saartay Korneyl Magan ku dheegagtay, iyada oo weli gacanta afka ku haysana weydiisay, oo hadda Saafi may dhimatay? Isaga oo faraha ku garaacaya miiska ayuu ugu jawaabay, Allah ha u naxariisto. Saafi cidii dilkeeda ka dambeysayna waxaanu ballan qaadaynaa in si degdeg ah loo soo qabto. Ruun oo weli eegaysa sarkaalkii ayaa labadeeda indhood ilma ka soo dareertay. Kadibna dhinaca kale ayay u jeesatay iyada oo ilmada garbasaarteedii iskaga tirtiraysa. Waxaa ka dhaadhici weyday sida ay u suurto gashay in dad xabsiga dowladda ku jira inta loogu soo galo lagu dilo. Muddo 20 daqiiqo ah markii Korneyl Magan la hadlayay Ruun, kana dhaadhiciyey in arrintan oo kale aanay xabsiga iska daayay aanay waddanka soo marin, ayaa waxa uu aakhirkii u sheegay in aanay arrintani iyada dhaafin si aan loo ogaan. Waxa uu u sheegay in ay jiraan dad badan oo warxumato shiil ah oo sheekada buunbuuninaya si ay dowladda wax ugu yeelaan. Waxa kale oo uu sheegay in haddii arrintaas uu suuqa ka maqlo, uu ka soo qaadayo in ay iyada oo Ruun ahi faafisay. Ruun oo Korneyl Magan la yaaban ayaa tidhi, geeri lama qarin karee, ka waran haddii askartaadu sheegto? Isaga oo indhaha ku gubaya ayuu ugu jawaabay, askartaydu sheegi maysee, haddii suuqa laga maqlo adigaa sheegay. Waxaa ka dhaadhici weyday Ruun in dilka gabadha ay habaryarta u tahay loogu hanjabay inay qariso. Waxaa ka soo wareegay bil iyo dheeraad maalintii Saafi xabsiga lagu sumeeyey. Waxaa la dhammaystiray baaritaankii nooca sunta lagu sumeeyey Saafi iyo dumarkii kale ee cuntada la cunay.
waxaana la xaqiijiyey in cuntada sun loogu daray inkasta oo suntu noocay ahayd aan la isku raacin. Waxaa kale oo baadhitaan dheer oo booliiska iyo ciidamada sirdoonku ay sameeyeen ku ogaadeen in Saafi ninkii ay dishay ee Cawaale uu qabi jiray Cadar Duwane oo aad suuragal u tahay inay dilka Saafi geysatay. Waxaase dhibaato noqotay sidii ay u caddayn lahaayeen inay Cadar Duwane dilka ka dambeysay, waayo magac kale ayay u sheegatay dadkii xabsiga joogay ee cuntada ka qabtay, wax caddayn ahna inay tahay qofka ay sheegatay kama ay qaadin. Maadaama uu dilkani fadeexad weyn ku ahaa dowladda, ciidamadii dambi baadhistu waxa ay ku dadaaleen sidii ciddii dembigan gashay ay u kashifi lahaayeen, waxaana loo xilsaaray dambi baadhista gabadh magaca Wiilo loo yaqaano oo NSS-ta u shaqaynaysay, aadna ugu xeel dheeray dembiyada la xallin waayo, iyo Carabeyto oo booliiska u qaabilsanaa dambi baadhista. Wiilo waxay ahayd gabadh sida ragga u labisataa, dumarkana aan inta badan raacin, kuna xeel dheerayd isyeelyeelka oo ahaydna qof aan laga garan karin in ay dowladda u shaqayso. Carabeyto waxa uu ahaa nin carabla oo si fiican aan hadalka u karin, qofkii arkaana moodaya dib jir aan weligiis dowlad iska daaya dukaanka shaqayn. Waxayna madaxdii dambi baadhista u xil saartay isla garteen in aanay jirin laba qof oo dembigan foosha xun cid kaga habbooni jirin Wiile iyo Carabeyto, maadaama aanay dowladdu dembigan dhacay faafin oo aan saxaafadda dowladda lagu faafin. Waqtigaas saxaafad madax bannaaniba ma jirine, sidoo kale reerihii ay ka dhasheen gabdhaha la sumeeyey lama wargelin. Marka laga reebo Saafi habaryarteed, Ruun oo shilkan si kama ah ula kulantay. Waxaa saddexdii marxuumadood ba aasay dowladda. Saafi oo habaryarteed ogaatay mooyaane labada kale reerahoodii waxaa loo sheegay in xabsi kale oo fog loo dhaadhiciyey. Waxa ay Wiile iyo Carabeyta bilaabeen qorshayntii ay ku kashifi lahaayeen ama uga soo saari lahaayeen Cadar dembiga ay gashay. Waxa ay baadhitaankoodii ku heleen magacyadii dadka ay Cadar saaxiibada ahaayeen ama ay aad isugu dhawaayeen. Waxa ay gaar ahaan aad ugu dadaaleen sidii ay u heli lahaayeen Aamina Xayasiis oo ka mid ahayd dadkii Cadar Duwane saaxiibtinimadoodu kala furatay. Wiilo markii ay Aamina Xayasiis la kulantay waxa isaga dhigtay in ay magaalada ku cusub tahay oo ay Kismaayo ka soo guurtay. Waxa kale oo ay u sheegtay in ninkeedu Sacuudiga ku maqan yahay oo ay Muqdisho fiisaha ku sugayso intii aanay la kulmin. Wiilo waxa ay soo ogaatay in Aamina Xayasiis ay jaadka cunto, sidaas darteedna warka ay raadinaysa fadhi kaga dhamaysan karto. Inkasta oo aanay Wiilo jaadka cuni jirin, waxay iska yeeli jirtay in ay cunto. Markay waxoogaa calaalisaba inta ay musqusha gasho ayay iskaga soo tufi jirtay. Mararka qaarkoodna waxay iska dhigi jirtay in ay jaadka ku xanuunsatay oo aanay cuni karin. Markii ay dhowr usbuuc sheekaysanayeen Wiile iyo Aamina Xayasiis, ayay Wiilo waxay ku tidhi habeen iyaga oo wada fadhiya, Aamina Xayasiisna mirqaan cirkaa marayso, maanta naag waalan baana la kala qabtay oo gardaraygu maagtay. Markii ay cabbaar sheekadii sii wadeenna waxay Wiilo u sheegtay in magaceeda la yidhaahdo Cadar Duwane, laakiin markii dambe iska heshiiyeen. Habeen walba oo ay kulmaanna sheekada ugu xiisaha badan ee ay ka sheekaystaan waxay ahayd Cadar Duwane. Aamina Xayasiis oo waxa ay maqasho ifka ugu nacbeyd Cadar Duwane, waxay uga sheekaysay Wiilo noloshii ay iyada iyo Cadar Duwane isla soo mareen. Waxa kale oo ay uga sheekaysay sidii foolxumada ahayd ee ay ula dhaqmi jirtay Saxarla iyo in odaygii qabay ee Cawaale darteed guriga uga tegay. Waxa kale oo ay u sheegtay in ay maqashay in Cawaale gabadhii Saafi ee Cadar Duwane kala baxday ay dishay, iyadiina la xidhay. Waxa ay Wiilo bilowday sidii baadhitaanka Cadar Duwane ay u bilaabi lahayd. Waxa ay maalin maalmaha ka mid ah Wiilo timid xaafadii ay degnayd Cadar Duwane, kadibna guryihii deriska la ahaa Cadar Duwane qaar ka mid ah ayay weydiisay in ay hayaan qol ijaar ah. Waxa ay isugu sheegtay in ay Kismaayo ka soo guurtay oo magaalada fiisa ku sugayso. Waxa reerihii mid ka mid ah u sheegeen in laga yaabo in Cadar Duwane qol kireynaysa maadaama ay guri weyn ku jirto, odaygii masruufka siin jirayna la dilay. Maalintii koowaad Cadar guriga waa ay ka maqnayd, laakiin Wiilo waxay u dhaaftay fariin ah in ay qol kira ah raadinayso. Waxa ayna u sheegtay in ay u soo laabanayso. 2 maalmood kadib ayay u soo noqotay. Waxa ayna la kulantay Cadar oo fariintii loo sheegay, kadibna cabbaar ayay sheekaysteen. Inkasta oo aanay Cadar qorshaha ugu jirin inay qol kirayso, haddana waxay aad uga heshay furfurnaanta iyo dabeecad wanaagga Wiilo. Waxa ayna ku tidhi, ma rabin inaan qol ijaaro, laakiin adiga waan kaa kiraynayaa. Waxaa tahay qof aad u wanaagsan,
dhowr maalmood kadibna Wiilo waxa ay u soo guurtay qolkii Cadar Duwane ka kiraysay. Wiilo iyo Cadar Duwane waxa ay noqdeen saaxiibo aad isugu wanaagsan. Sidii Wiilo ay ku kasbatay kalsoonida Aamina Xayeysiye ayaa waxay isaga dhigtay Cadar in ay jaadka cunto. Inta badanna waxaa jaadka soo iibin jirtay Wiilo. Waxay Cadar Duwane u aragtay in Wiilo tahay qadar Ilaahay u soo diray. Wixii ay dhibaato soo martay iyo saaxiibadii ka xumaaday intaba waxaa murugtoodii ka maydhay saaxiibadeeda cusub ee Wiilo. Sidii Wiilo filaysayna Cadar habeen walba marka ay mirqaanto ayay iska burqataa oo wixii caloosheeda ku jiray oo dhan bannaanka u soo qubtaa. Waxay uga sheekaysay dhibaatadii uu Cawaale u geystay iyo naagta uu la guursaday, tii yarayd ee Saxarle ee ay korisay oo ku kibirtay, iyo naagihii ay saaxiibada ahaayeen oo ka xadhig furtay markii xaaladeedu meeshii ugu xumayd maraysay. Intii Wiilo baaritaanka Cadar Duwane ku waday, Carabeytana waxa uu ku mashquulsanaa dabagalka iyo meesha ay Cadar ka soo iibisay sunta. Waxa uu ku wareegay dhammaan farmasiyada xaafadda in ay hayaan sun khatar ku ah in ay wax disho. Waxay badankoodu u sheegeen in aanay hayn weligoodna iibin, marka laga reebo farmasi uu lahaa nin la yidhaahdo Cagjar. Markii uu Cagjar tegayna waxa uu sheegay in uu hadda ka hor iibin jiray sunta DDT-da laakiin iska daayay kadib markii loo sheegay in gabdho dhalinyaro ahi cabeen oo isku dileen markii waalidkoodu niman aanay rabin ku khasbeen. Markii uu weydiiyay Carabeyta ninkii farmasiga lahaa ee Cagjar in baryahaas cidi weydiisay DDT-da, waxa uu sheegay in haweeney xaafadda degan oo la yidhaahdo Cadar Duwane hadda ka hor weydiisay. Markii uu weydiiyay sababta ay u rabtana ay u sheegtay inay baranbar ku dilayso. Waxa kale oo uu u sheegay in uu u tilmaamay nin farmasi ku leh xaafadda Waaberi oo iibiya DDT-da. Waxa kale oo uu raaciyay waxa laga yaabaa in ay isaga ka iibsatay. Waxaa ka soo wareegtay 3 bilood iyo dheeraad ilaa iyo maalintii Wiilo iyo Carabeyta ay baaritaanka ku bilaabeen Cadar Duwane. Saaxiibtinimadii iyo sheekadii dheerayd ee dhex martay Cadar iyo Wiilo waxay sababtay in Cadar si sir ah ugu sheegtay in ay wax badan ka fikirtay in ay Saafi disho. Waxay u sheegtay in ay maqashay in ay ninkeedii hore ee Cawaale ay Saafi dishay oo xabsi daay lagu xukumay, kana fakartay dhowr jeer in ay xabsiga ku sumayso. Waxay u sheegtay in sunta ugu fudud ee ay ka fakartay ay ahayd DDT-da, laakiin dhibkeedu ahaa in haddii cuntada lagu daro ay ka soo urayso, iyo iyada oo hadda ka hor gabadh yar oo ay habar yar u tahay waa Saxarle intii cabtay ku dhimo weyday. Cadar sheekadii Wiilo halkaas u dhaafin weyday, laakiin Wiilo waxa ay Cadar ka dareentay in ay sun aan DDT-da ahayn ay isticmaashay. Sidoo kale markii uu Carabeyta la kulmay ninkii farmasigiisu DDT-da iibinayay, waxa uu tusay sawir ay Cadar Duwane leedahay oo ay Wiilo gurigeeda ka soo xaday. Waxa kale oo uu sheegay ninkii farmasiga lahaa inuu yahay boolis dambi baadhe ah. Cadarna ay xidhan tahay una sheegtay booliiska in ay sunta isaga ka soo iibsatay. Sida kaliya ee uu dambiga uga badbaadi karaana ay tahay in uu Cadar Duwane markhaatiga ku furo. Markii ay Wiilo guriga Cadar Duwane soo degtay, alaab badan ma ay wadan. Waxay wadatay shandad kaliya oo dhar ugu jiray iyo sariir ay soo dhigatay. Waxbana guriga kuma karsan jirin, inta badanna gurigaba ma soo seexan jirin. Waxayna Cadar u sheegi jirtay in ay asxaabteeda la soo seexatay. Cadar weligeed marna kama shakiyin Wiilo, wax kasta oo ay u sheegtana way rumaysan jirtay. Maalin Jimcaha ayay Wiilo shandadeedii garabka soo suratay, una sheegtay Cadar Duwane in safar degdeg ah soo galay oo Kismaayo gaadhayso. Maalintii ku xigtay oo Sabti ahayd waxaa gurigii Cadar iska soo buuxiyay askar booliis iyo NSS isugu jira. Waxa la xidhay jidadkii guriga ku dhawaa oo dhan. Wax yar kadibna waxaa albaabka laga soo saaray Cadar oo gacmaheedu xagga dambe marsan yihiin oo katiinadaysan. Intii Cadar gurigeeda askartu ku jirtay iyo intii baabuurka booliiska la saarayayba, waxaa jidadka dhinacyadooda ku soo ururay dad badan oo ciyaal iyo haween u badnaa oo kor ka daawanayay. Markii Cadar uu booliiskii ka haystay kadibna dadkii waxa ay ku shamuumeen gurigii Cadar. Waxay dadkii fahmi waayeen waxa dhacay. Qofba meel ayuu malaha u saaray. Xitaa qaar baa soo jeediyay in ay dilkii Cawaale iyadu ka dambeysay oo loo xidhay. Iyada oo weli dadkii gurigii Cadar ku buuqsan yihiin ayaa waxa soo joogsatay Xareedo Coljire oo weydiisay dadkii waxa meesha ka dhacay. Markii loo sheegay in Cadar Duwane la xidhaynay inta ay xagga gurigeedii u tukubtay ayay tidhi in cuqubadii rajadu maalin uun ka soo baxaysa waan ogaa. Waxaa ka soo wareegtay usbuuc maalintii Cadar Duwane booliisku ka haysteen ee la xidhay. Markii goor subax hore ah idaacadda dowladda laga saaray heestii ahayd Samadiido dabin baa kuu dhigan lagu dili doono.
idaacadda raadiyaha oo heesta samadii subaxda hore laga daaraa waxay astaan u ahayd in dowladdu qof dil toogasho ah ku xukuntay oo la dilayo. heestii kadib waxaa idaacaddii laga sheegay in haweeney la yidhaahdo Cadar Duwane oo 3 dumar ah xabsiga ku sumaysay dil lagu xukumay. maalinta Jimcahana lagu toogan doono garoonka Afisioni ee dadka lagu toogto. waxaa aad loo xayeysiiyey waqtiga ay toogashadu dhacayso, waxaana aad idaacaddu uga sheekaysay dembiga culus ee ay Cadar Duwane gashay. waxaa yaab iyo amakaa ku dhacay dhammaan dadkii Cadar Duwane yaqaanay, inkastoo xasarad badan lagu ogaa haddana waa loo qaadan waayey in ay dembi intaas la-eg u badheedhay. waxaa kale oo dadku ka yaabeen sida degdega ah ee toogashada loogu xukumay. dadka deriska badankoodu waa ay ogaayeen in la xidhay, laakiin lama ay socon goorta maxkamadda la saaray iyo marka la xukumay toonna. waxaana markiiba bilaabantay xan dadku leeyihiin maxkamadba lama geyne qol madow ayaa lagu xukumay. waxaa gurigii Cadar ku soo ururay dad badan oo deriska ah iyo qaraabadeeda dad ah si ay ugu tacsiyeeyaan ciddii joogta. hase ahaatee albaabkii ayaa laga furi waayey. dadkii oo weli bannaanka tumanaya waxaa soo joogsaday gaadhi tagsi ah, waxaana kasoo degay Xaaji Duwane oo daal iyo gabo korkiisa ka muuqdaan. dadkii albaabka taagnaa isaga oo aan juuq u odhan ayuu bakooradii uu ku tukabayay albaabka ganjeelada xoog ugu garaacay. waxaa gudaha ka hadashay qof dumar ah oo tidhi, yaa waaye. markii uu yidhi waa Xaaji Duwanena albaabka furtay, kadibna markii uu gudaha galay qab ka siisay albaabkii. muddo markii xayeysiiskii dilka Cadar Duwane oo idaacadda ka socday, waxaa la gaadhay subaxdii maalintii Jimcaha ee la toogan lahaa. qof nacab iyo qof jecelba habeenkii oo dhan waxaa dadka dhex socday dood ah in ay meesha Cadar lagu tooganayo tagaan iyo in kale. qof kastaa go-aankiisu wuxuu doona ha noqdee, Xaaji Duwane iyo dadkiisii waxa ay isu diyaariyeen sidii ay meesha u tegi lahaayeen oo meydka u soo qaadan lahaayeen. waxa ay soo kiraysteen gaadhi daboolan oo ay ugu talagaleen inay meydka ku soo qaadaan. muddo dheer ayaa isugu dambeysay Cadar Duwane iyo Saxarla, iyada oo qiyaastii duhurkii suuqa ka soo noqotay oo doonaysay inay Bilaal seexisa ayaa waxa u yeedhay Asli oo weydiisay xaaladda habaryarta ama maqashay. Saxarla ayaa inta ay dhinacii Asli jalleecday sidii wax yaaban weydiisay, waa tee habaryartay. waxay Asli ugu jawaabtay, waan ogahay in aydaan isku fiicnayn ee waxaan ka wadaa Cadar Duwane. inta ay xagga qolkeedii u dhaqaaqday ayay tidhi, haddeerna ma rabo inaan xaalkeeda iyo warkeeda midna ogaado. Saxarla oo qolkeedii sii gelaysa ayay Asli kasii daba tidhi, dil ayaa lagu xukumay oo Jimcaha ayaa la tooganayaa. Saxarla ayaa inta ay mar kale dib u soo jalleecday Asli ku tidhi, bele ha disho. kadibna qolkeedii hore u gashay. intii ay qolkeeda ku jirtay, Saxarli way ka fakartay dilka Cadar Duwane, kamana ay nixin kumana ay farxin dilkeeda. waxaa ka yaabiyey dembiga ay geysatay ee kalifay in toogasho lagu xukumo. markii ay Bilaal soo seexisay kadib ayay bannaanka u soo baxday, kadibna Asli oo daaradda fadhida ayay weydiisay sababta loo tooganaya in la sheegay. Asli waxay u sheegtay in 3 dumar ay xabsiga ku dishay. Saxarla oo yaaban ayaa Asli weydiisay, oo miyaan xabsiga askari joogin. Asli oo aan weli su-aashii Saxarla ka jawaabin ayaa waxaa idaacadda ka soo galay xayeysiiskii lagu tooganayo Cadar Duwane, iyada oo weliba 3dii haweenka ahaa ee ay dishay magacyadooda la sheegay. Saxarla ayaa indhaheeda ilma ka soo daadatay, kadibna iyada oo hoos eegaysa ayay foodadeedii ilmada iskaga masaxday. Asli ayaa inta ay kursigii ay ku fadhiday ka soo kacday garabka gacanta ka saartay, kuna tidhi, ilaahay samir ha kaa siiyo, inkasta oo ay yaraantii kugu dhibtay, haddana waaliduun bay ahayde. Saxarla ayaa inta ay kor u eegtay Asli ku tidhi, iyada uu ooyi maayo, danina igama hayso. gabadhii Saafi ee ay dishay ayaa qof aad u wanaagsan ahayd. kadibna waxay uga sheekaysay Asli wanaagga ay u gashay Saafi muddadii ay gurigeeda joogtay, waxayna ku tilmaantay in ay ahayd qof aad u dadnimo fiican. waxaa la gaadhay subaxnimadii Jimcaha ee Cadar Duwane la toogan lahaa. waxaa ninkii idaacadda ka hadlayay aad ugu guubaabiyey inay dadku ka soo qayb galaan toogashada si ay indhahooda ugu arkaan abaalmarinta ruuxa dembiga noocaas oo kale ah ku kaca. waxay ahayd waqti xagaa ah oo roob shuux ahi da'ayo. waxaa dhulka hadheeyay daruuro madow oo aad moodid inay dhulka ku soo fadhiisanayaan. waxaa qoryihii dhulka laga taagay ee dadka la tooganaya lagu xidhayo dushooda fadhiistay dhowr tuke oo qaylinaya. waxaad moodaysay inay ogaayeen in meesha dhiig ku daadanayo. inkasta oo roob shuux ahi da'ayay, haddana kama baajin dadkii dilka daawan lahaa.
waxaa raxan u soo saftay dad badan oo degdegaya sidii ay shaqo ka soo daaheen. Intii aan Cadar iyo askartii toogan lahayd midna iman, waxaa meeshiiba buuxiyey dadkii daawan lahaa oo da' kasta isugu jiray, dumar, caruur, ciroole iyo dhalinyaraba. waxaa dadka badankiisa ka muuqday samir la'aan, maadaama ay muddo dheer sugayeen in barnaamijka dilku bilowdo. Markii ay arkaan baabuur weyn oo meel fog ka soo socda, dad baa u sacbinayay oo moodayay kii Cadar lagu siday. Muddo saacad ku dhow markii dadkii meeshii tubnaayeen, ayaa waxaa gadaashooda soo joogsaday baabuur bas yar la-eg oo dusha ka daboolan. Markiiba dadka qaarkiis ayaa mooday kii Cadar lagu siday oo sacbiyey. Hase ahaatee waxaa ka soo degay Xaaji Duwane iyo ilaa 6 qof oo raaskiisa ah. Cadar Duwane caruurteedii cidi kalama socon. Xaaji Duwane iyo dadkii la socday midkoodna may fahmin sababta dadku la sacbinayeen. Xaaji Duwane oo murugo weyni ka muuqata ayaa gaadhiga afkiisa hore ku tiirsaday, kadibna waxa uu bilaabay in bakooradii uu watay uu dhulka ku garaaco. Waxaa ka soo wareegtay in ka badan 2 saacadood iyo dheeraad markii dadku meeshaysa soo tubeen. Waxaa dhinac ka soo muuqday dhowr gaadhi oo istaba socda. Gaadhiga ugu horreeyay waxa uu ahaa gaadhi booliisku leeyahay oo xagga dambe ka furan, oo 8 askari dusha ka saaran yihiin. Waxaa ku xigay gaadhi weyn oo booliisku leeyahay oo dusha ka qafilan. Waxaa daba socday baabuur ciidamadu leeyihiin oo ay ku sawiran tahay bisha cas. Waxaa ka sii dambeeyay 2 baabuur oo waaweyn oo askar wejigoodu qarsoon yahay ka buuxdo. Markii ay soo joogsadeenba waxaa ka soo degay askartii booliiska, waxayna isku xeereen safkii hore ee dadkii meesha tubnaa, iyaga oo u xariiqay layn aanay soo dhaafi karin. wax yar kadibna waxaa gaadhigii weynaa ee qafilaa xaggiisa dambe laga soo dejiyay Cadar Duwane oo gacmaha iyo lugahaba silsilada uga xidhan yihiin, madaxana uu ugu jiro waxaad jawaan moodid. Waxa gaadhiga la saarnaa oo hareeraha hayay 4 askari oo wejigu u duuban yahay. Markiiba waxay u dhaqaajiyeen dhinaca qoryaha dadka la tooganayo lagu xidho. isla markiiba intay qorigii dhabarka ugu tiiriyeen ayay xadhig dheer oo ay siteen ku wareejiyeen, iyaga oo ku adkaynaya tiirka si aanay u dhaqdhaqaaqin. Markii xadhigii si fiican loogu adkeeyey ayaa nin sarkaal ah oo askarta hogaaminayay inta uu ul yar oo uu sitay kor u taagay dadkii ku yidhi, qoftan aad arkaysaan ee hortiinan ku xidhxidhan waxaa la yidhaahdaa Cadar Duwane. Waxaan u malaynayaa inaad dembiga ay geysatay idaacadda ka maqasheen. Haddii aydin hore u maqan lahadda ayaan idiin akhriyaa, ayuu sii raaciyey inta uu warqad la soo baxay, kadibna warqaddii akhriyey isagoo dunuubtii ay gashay taxaya. Markuu sarkaalkii qodobadii uu akhriyay dhameeyeyna, waxa uu askartii ku amray in ay maradii madaxa ugu jirtay ka saaraan. Markii maradii laga saaray ayaa inta uu ushiisii kor u taagay yidhi, ma wada aragtaan? Dad baa hadhow odhan doono qofta la dilay Cadar Duwane ma ahayne. Waxaa Cadar wejigeeda ka muuqday daal, waxaana la moodayay sidii wax bararay. Waxaa timaha ugu xidhnaa malkhabad iyo masar. Dhowrkii daqiiqe ee sarkaalku hadlayay Cadar waxaa indhaha la raacday dadkii meesha hoganayay ee u yimid in ay dilkeeda daawadaan. Wax cabsi ahi haba yaraatee kama ay muuqan. Waxay u muuqatay qof dilka la dilaya ku qanacsan. Saafi habaryarteed Ruun ayaa mar keliya kor u qaylisay oo tidhi, cadaabta ku gubo, ilaahayna ha kaa abaalmariyo dembiga aad gashay. Isla markiiba askari ayaa ku booday Ruun oo ku yidhi, naa aamus. wax yar kadibna sarkaalkii ayaa amar ku bixiyay in maradii Cadar Duwane madaxeeda laga saaray dib loogu celiyo. Waxaa la soo safay 24 askari oo 2 saf oo kala dambeeya u taagan. Sarkaalkii ciidanka watay ayaa amar ku bixiyay in safkii hore diyaar garoobo. Jilibka ayay hoos u gaabsadeen, kadibna mar keliya ay xabad ku wada fureen. wax yar kadibna waxaa sarkaalkii u yeedhay dhakhtar gaadhiga bisha cas dhinac taagnaa. kadibna Cadar oo culayskeedii hoos u dhacay oo aad mooday inay xadhkii ka dabacday oo dhulka u dhowaatay, ayaa dhakhtarkii gacanta bidix iyo qoorta ka taabtay si uu u eego in ay weli nooshahay. kadibna sarkaalkii ayuu la hadlay isagoo u sheegay inay weli nooshahay. kadibna safkii dambe ee askarta ayaa diyaar garoobay. kadibna inta ay jilibka laabteen ayay rasaastii mar keliya ku wada fureen.
waxaa qadar korkeeda ka baxay qiiq oo dadka qaarkood ay moodeen inay gubatay, waxaana dhowr meelood ka go-ay xadhiggii ku wareegsanaa, kadibna dhulka ayay ku dhacday. Mar labaad ayuu dhakhtarkii ku laabtay Cadar oo eegay inay nooshahay, isla markiina waxa uu sarkaalkii u sheegay inay dhimatay. Sarkaalkii ayaa mar kale hadalkii ku laabtay, wuxuuna dadkii ku yidhi, way maqlaysaan, Cadar duwane waa taas naftii ka baxday. Qofkii ku xadgudba sharciga qarankana sidaas ayaa u dambaysa oo waa laga abaalmarinayaa. Sarkaalkii oo aan weli hadalkiisii dhammaysanaya dadkii waxaa ka soo dhex baxay Xaaji Duwane oo rabay inuu la hadlo sarkaalka si uu uga codsado inuu meydka qaato. Hase ahaatee waxaa markiiba joojiyay askartii dadka hortaagnayd mid ka mid ah. Askarigii ayuu ka codsaday inuu la hadlo sarkaalka, isna sugayuu ku yidhi. Askarigii ayaa inta uu sarkaalkii u tegay u sheegay in odaygu aabbaheed yahay oo uu doonayo inuu meydkeeda qaato. Sarkaalkii ayaa inta uu ushii kor u taagay yidhi, imaqla, waxaa la ii sheegay in odaygii haweenaydan dhalay codsaday inuu meydkeeda qaato. Waxaan idiin sheegayaa in qof dembi intaas la eg galay meydkiisa aan cidna la siin. Waxaa la geynayaa xabaalaha dadka ay isku dembiga yihiin lagu aaso. Haddeerna meesha ku kala dhaqaaqa, hawshii way dhammaatay. Waxaa gaadhigii bisha cas laga soo dejiyey naxash meydka lagu qaado, waxaanay shaqaalihii gaadhiga la socdeen meydkii oo dhiiqariyey saareen naxashkii, kadibna gaadhigii geliyeen. Markii gaadhigii meydka siday dhaqaaqayna askartii ayaa inta ay baabuurtii ay la socdeen degdeg u koreen ka daba dhaqaaqay gaadhigii meydka siday. Dadkii daawashada u yimid badankoodiina iyagoo koox dilkii uga sheekaynaya ayay meeshii ku kala dareereen. Xaaji Duwane oo isagu markii meydka gabadhiisa loo diiday dhulka fadhiistayna ayaa inta uu soo tukubay tiirkii lagu xidhay is-ag taagay, kadibna bakooradiisii dhiiggii dhulka yaalay ku qodqoday. Wax yar kadibna inta uu gacmaha cirka u taagay Ilaahay naxariis uga dalbay. Isagoo weli dhiiggii dul taagan ayaa nin dhalinyaro ah oo la socday inta uu u yimid garabka qabtay oo meeshii ka dhaqaajiyey. daawadayaal intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii 19aad ee buugga sheekafaneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta xigta inta aynu ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh.